بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ummad Soomaaliyeed la qaybsado war farxad leh dagaalkii shalay ka dhacay awdheegle oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay mataqaanaa meesha joogay ay soo weerareen nimanka argagixisada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iska caabiyay si aad iyo aad u difaacay ciidan yar oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo meesha ku jiray oo aan tiradiisu kooban tahay bay awood badan ku weerareen ayagoo isku dayay inay ka xoog bataan la wareegaan meesha qalabka iyo teknikadana qaataan dadkana ku laayaan laakiin waxa ka raacay jab ayna waligood ka soo waaqsaneen waligoodna ay xasuusan doonaan waan ogahay markay wax dharbaax xun gaarto September taariikh bay u sameeyeen urur hebel laakiin waxaan ogahay inay tan aysan ahayn mid ay iloobi doonaan waxaan aaminsanahay khasaarihii shalay soo gaaray ee ahaa inay marnaba ayna soo gelin xeradaas wax kastoo qarax iyo ciidan lagu intaba isku soo daraan inayna u suurtagelin marka waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad iyo aad baan u amaanayaa waxaan leeyahay sharaftii iyo geesinimadii iyo mataqaanaa aqoontii idinku yaqaanay baa muujiseen waxaan aaminsanahay mar kasta inaad muujin doontaan intaas iyo in ka badan geesinimadii aan shalay u diyaar garoodeen ee ahayd ama dhaartii aan shalay u dhaarnay inaan u dhimano dadkayaga iyo dalkayaga waad muujiseen aad iyo aad baa umahadsantihiin ammaan gaar ah baan idiin soo jeedinaya waxaan kaloo rabaa inaan shacbiga Soomaaliyeed aan codsi u jeediyo aan iraahdo ciidanka dhimanaya waa wiilashiinii oo diyaar u ah inay difaacaan waxaa idinkaga baahan yahay mar kasta meesha idinla joogaan inaad ku gacan siisaan waajibaadkooda wixii ay idinkaga baahdaan oo mataqaana ay u baahayeen wixii ayagu ay idinkaga baahdaan waxaan shaki ku jirin wada shaqaynteenu inay keenayso guul rasmi ah oo waliba degdeg ah aad iyo aad baa umahadsantihiin